maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka uu dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu yahay $85. askariga waxa lagu soo eedeeyay isagoo direyska xidhan inuu wax dhacay ciidanku degdeg buu kiiska u baaray ninkii lagu eedeeyay markhaatiyo ku sheegeenna maxkamad baa la hor keenay maxkamadiina waa taa محمد عبد حرير إن أنا حسن وقت الزعيد كبوليسكا أنا كنت دعويني حفيزك حيرانته إذا مضوا فرعتني ما هو بيسن وكوه بيسن مدي. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية الصوماليلاند محكمة ciidamada darajada koowaad gobolada galbeed maanta ay taariikhdu tahay 16 bishii Abriil 2024 maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhageysiga iyo ku dhawaaqista eeda loo haysto eedaysanahan maxkamadda hor taagan kaasoo lagu soo eedeeyay isaga iyo laba eedaysan oo kala maqan oo aan la aqoonsanin qodobka 484 oo lala akhriyo qodobka 71 xeerka ciqaabta guud oo macnaheedu yahay budhcadnimo wada jir ah maxkamaddu markii ay eeda u akhriday eedaysanuhu dafiray inuu dambiga galay waxaanay maxkamaddu dhageysatay 4 markhaati oo cadeeyay in eedaysanu yahay kii galay budhcadnimada isaga iyo labada eedaysane kala maqan ee aan la aqoonsan dabeedna maxkamaddu waxay u gudubtay difaacii eedaysanaha kaasoo isku difaacay dhaar sidoo kale maxkamaddu waxay dhageysatay gabagabada xafiiska xeerlaalinta iyo qareenka eedaysanaha ugu dambayn maxkamaddu waxay dhageystay codsiga eedaysanaha kaasoo maxkamadda ka codsaday cadaalad sidaa darteed maxkamaddu waxay soo saartay xukunkan maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka uu dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu yahay $85. maxkamaddu way noo xidhan tahay goobtan aynu taagannahay waa goobtii ay dacwadda ku qaadaysay xukunkana kaga dhawaaqday maxkamadda ciidamada qalabka sida oo hadda inoo hor taagan ciidan ahaan iyo booliis ahaan waxaa sharaf noo ah maanta inay halkan gar ku qaado maxkamaddu ciidanku siyaasadda dawladda iyo mabaadi'da ciidanku ku shaqeeyaaba waxay yihiin ninka ciidanka ah direyska wixii lagu galo direyska isaga wixii dambiye lagaga galo in cadaalad loo mariyo wuxuu isagu direyska ku geystana in cadaalad la mariyo maanta tiibaynu markhaati ka nahay askariga waxa lagu soo eedeeyay isagoo direyska xidhan inuu wax dhacay ciidanku degdeg buu kiiska u baaray ninkii lagu eedeeyay markhaatiyo ku sheegeenna maxkamad baa la hor keenay maxkamadiina waa taa ku furtay ku xukuntay markay dhageysatay gar cadaaladeed ka soo saartay waanu u mahadnaqaynaa maxkamaddii xeeraarinta ciidamada ciidan weynaha booliiska iyo ciidamada qalabka sida dhammaan waxaan leeyahay direyska waxa laynoogu dhiibay dadka inaan ku ilaalinno sharcigana ku socodsiinno taa ammaan baynu ku mudannahay waa waajibaad qaran oo aynu gudanayno laakiin ninka xun ee direyska dhinac kale si kale u adeegsada tan oo kale isna ciqaab baa la marinaya maxkamad cadaaladeed baa la hor taagayaa sidaa iminkaba ay markhaatiga inoo tahay markaa guud ahaan waan uga digayaa xumaha inay ku kacaan ciidanku sharafta iyo karaamada direyskana ilaaliyaan waajibaadku siduu yahayna u gutaan maanta taariikhda 16 bishii Abriil ee 2024 xarada ciidanka birmadka dhexdeeda waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gobolada galbeedku u fadhiisatay inay ku dhageysato dacwad lagu soo eedeeyay askari bool محمد عبد حرير إن أنا حسن وقت الزعيد كبوليسكا أنا كنت دعويني حفيزك حيرانته إذا مضوا فرعتني ما هو بيسن وكوه بيسن مدي صدق كيف بيجي صدحات إنه حافظة أحمد لقعة إذا مدي ستا إذا يلا بدنا الله قوسني ثم الكاميرا بسوا تاجنا weerar ku qaadeen kana qaateen moobil halka mid kale qarsatay moobilkii tan uu dafiray waxaan arkaynay maxkamadda 4 markhaati oo 4 tiba cadeeyeen inuu isaga yahay ninkii waa burcadnimada geystay waxa kale dambi kale oo qarsoon ku galay labadii tiba kale wuu qariyay
go'aankii maxkamadda ka soo saartay annagoo maxkamadda ammaan iyo ixtiraam iyo sharaf ay mudan tahay u jeedinaynaa